taariikhda noo gali kastaba ka badiyo tajirow allahayo taariikhda noo gali taariikhda noo gali الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى صلى الله عليه وسلم وقريسو ضمان خير قشرة لك السوق بشيء برامج شهادة وروح المضل المسؤول الذين ولكن جودي بدل سنة ولكن عقلي لما يدينا سابود الرجيم مكانك فرنا ومقع فرنا السلام يا سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد التحية إن شاء الله تعالى الله يا مقع أورك إسبين سومالي خمينيست قبين نايميخن waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan barnaamijkan quruxda badan ayna soo abaabulno waxaan rabaa wax yar inaan idinkaga sheekeeyo taariikh yar oo sababta loo aasaasay Spain xaqiiqatan ummadda Soomaaliyeed markaan wadanka ka soo tageynay waxaad moodaa inaan colaad iyo dhibaato iyo burbur aan ugu soo carnay waxaynu nimid meel aan garanaynin culture-keeda aan garanaynin nidaamkeena aan aqoonin kadib waxaynu naqanay qaxooti ayaynu naqanay wadankana ka soo carnay qaxooti ayaynu naqanay mar haddii qofka qaxooti ay noqdaan waa la maamulaa yani waxa laga yaabaa waxyaalo qaarkood badanaa ka qaldamayaan haddaba Spain markay taa aragtay Nijmegen waxay go'aan ku gaartay in ay urur samayso ururkaas oo lagu magac daray Spain oo ah Somali Plan Khamenis Qabin Nijmegen taa oo hadafkeedu uu yahay sidii la soo keeni lahaa Soomaalida degan magaalada Nijmegen loo mideyn lahaa loo shaqeyn lahaa xataa la bari lahaa nidaamka wadanka ka jiro waalidka isdagaalsan ciyaalka iyo hooyooyinka barbalamada ka taagan ardayda aan waxbarashada haysanin in laga saacido ayay ururku u istaagay falilahi alxamdu aan ku guuleysanay ururku wuxuu shaqeynayaa ugu yaraan 10 sanadood wama zaadu shaqeynayaa wax badan ayaa u hirgelay waalidiin badan oo carruurtooda kala tageen ay isku keeneen waalidiin badan oo wiil iyo hooyo iyo aabo kala tagay isku keeneen alxamdulillah waa hadafkii aanu lahaynay ahayd lianna hadaanan taa la sameeynin waxa imaan lahay burbur qoys ayaa imaan lahaa taana waa muhiimada nasaare inayna Soomaali hadeenahay in hawsha ka qabano alxamdulillah rabbil caalamiin anagoo taa ka duuleynay ayaan maanta hadana waxaan u istaagnay maadaama barnaamijkeena uu yahay arrimaha bulshada Soomaaliyeed inaynu ka shaqeyno waxaa maqaal nagu naqday maqalnay walaalkeena Cabdi Nagaye oo juhdi badan sameeyay dadaal badan sameeyay ka dhiibiyay muwadaniyada walaal jaceelka iyo halyeynimada iyo wuxuu u soo hooyay magaalada aynu deganahay wadankeenu deganahay magacii Soomaaliyeed aynu haysano marka horeyso waxaan idin leenahay dhamaantiin idin barno ana marnaba idin baraayo Cabdi Nagaye isku cusbni إن شاء الله تعالى فيسبوك قال إسبين قال وأرضينا كم يتهاي وهو هاي هذا عركة إسبين ليد كم يدا يويه عبد نجية مركب لما مستحق وحنقولنا جزاك الله خير جدي أسمعسن ذلك أسمعسن وحنقول دردار من هذين هاي روكان إسبين إن هاش أصيل لأولادي تطبقنا يا كسجويو هدو الله ودلاد وقت قاعد أيون نوير يهاي وحنرجعنا مركب إن شاء الله تعالى إنه حلنا أرضي نوع سيدا عبد يوكل إنه حلنا لأن Want Nijmegen is een echte sportstad. Dus in de gemeenteraad probeert belang sporten en bewegen voor iedereen, voor jong en oud, te stimuleren. Wat hebben we dan de beste stimulans die er dan is? Dat iemand uit Nijmegen ook op de Olympische Spelen de marathon wint. Ik weet ook goed dat we er waren zondagochtend, keken we altijd wat er de nacht tevoren was gebeurd. De zaterdag was al een fantastische dag voor Nederland. En toen zagen we dat wie de zilveren medaille had gewonnen is. Wat we misschien niet hadden gedacht, maar wel hadden gedroomd, was gebeurd. En ook niet alleen hoe die hem won, maar ook de manier waarop. Ook de manier waarop ik zijn trainingsmaatje, Abdi Bashir, goed zeg, de nummer 3, hielp over de streep en ook een medaille winnen. Is een voorbeeld van het allemaal. Dus hoef ik weinig aan toe te voegen. Fijn dat je hier mag zijn, winnen en dat Nijmegen ook een voorbeeld aan hem kan nemen. Dankjewel. Tokyo, met de marathon, ik was een U1 een Griekse stad. En jij startte en ik startte ook. Ik ging gewoon bij de
museum is. Ik heb mijn rondje gelopen, kwam terug, hij was nog steeds bezig. En het is pas een week geleden dat Abdi in Tokio op het allerhoogste podium stond. Geflankeerd Eliud Kipchoge en Bashir Abdi. Ook twee atleten die ik heel erg goed ken. Abdi, wat heb je mij, miljoenen mensen, ongelooflijk blij gemaakt met je fantastische prestatie. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, je hebt me ook verrast. Natuurlijk heb ik je carrière altijd gevolgd. Vond je een geweldig atleet. Waarom was Abdi zo geweldig? Omdat het een jongen was die van hardlopen hield. Gepassioneerde sportman. Hij hield van het hardlopen. En het valt niet altijd mee, want om wegen te maken van 180, 190 kilometer, jaar in, jaar uit, 10 jaar lang of nog langer. Iedereen ziet natuurlijk nu het resultaat. En het is geweldig dat het allemaal gelukt is. Ja, Abdi, ik heb je natuurlijk gevolgd. Ik heb je, als junior heb ik je Nederlands kampioen zien worden bij de A-junioren. Ik denk, hé, wat is dit allemaal? Ik zag je jaar voor jaar sterker worden. In de marathon, we moeten niet vergeten, Abdi kwalificeerde zich voor Rio de Janeiro. En daar werd hij 11e. En dat vond ik wel heel geweldig. 11e op de marathon. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? 3 jaar daarna was ik in Rotterdam getuige van je Nederlands record. Samen met Koen, dat weet ik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maanta waxaan rabaa hadalka badana waa la soo sheegay. Marka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo akhyaartii dacwadan soo ajiibtay, akhyaartii kulubkaan soo ogolaanay inay noo imaadaan. Waxaan kale u mahadcelinaynaa dhalinyarta isboortiga ah ee Netherland, aada u mahadcelinaa. Waxaan kale u mahadcelinaa martida noo imaadeen, journalistayaasha iyo organisationyaasha kale noo imaadeen, ayagana u mahadcelinaa. Aada u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi. Allereerst bedankt voor deze uitnodiging. Ik vind het een enorme eer om hier aanwezig te zijn, om een echte Olympische kampioen in Nijmegen welkom te mogen heten en uit te spreken namens de Nijmeegse gemeenschap. Mag ik dan denk ik wel zeggen dat we echt ontzettend trots zijn. Het is een enorm geweldige prestatie, zilver halen op zo'n afstand. Ik heb mijn zoon mee mogen nemen, die kan het niet voorstellen. Afgelopen week zijn we voor het eerst naar de atletiekbaan gegaan, maar dan misschien op atletiek. En ik heb hem een rondje van 400 meter laten rennen, maar hij was lekker af. 42 kilometer, dat is dan een hele prestatie. En dat vind ik gelijk ook zo mooi, dat zo'n prestatie dan ook gelijk een inspiratiebron is, weet ik, voor heel veel jeugd. Ja, goedemiddag en dank voor deze uitnodiging en dank ook voor deze topprestatie. Niet alleen op sportief gebied, maar ik denk met name op sociaal gebied. Want de manier waarop jij daar ruim 2 lopen op het trainingsmaatje, jouw vriend, was je zo opving, ik zag het gewoon op tv, dat laat zien dat jij toen niet alleen sportief nog bezig was, maar ook sociaal maatschappelijk. Ja, sociaal, je had gewoon de tijd en ruimte in je lichaam en in je geest om te kijken naar een ander. En ik denk dat dat echt iets is wat jou nog groter maakt dan dat je al bent. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dadka Soomaaliyeed iyo dadka kale martida ah dhammaantood waxaan jecelahay inaan usoo gudbiyo salaan kaliya laab ah oo ka timid guud ahaan ummadda Soomaalida ee degan waddanka Holland. Salaan kadib waxaan jecelahay inaan si gaar ah oo xusid mudan uga mahadceliyo jaaliyadda Nijmegen, gaar ahaan ururka Spain oo runtii hawshaan quruxda badan maanta soo abaabulay, isku soo dabariday, wax badanna u qabta ummadda Soomaaliyeed ee degan magaalada Nijmegen. waxaan jecelahay inaan aad iyo aad runtii u mahadceliyo hawshaas weyn ee qabtaan oo tan maanta ay Cabdi Nageye
guusha uu gaaray ay kusoo bandhigeen ay ka mid tahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin dadaalkaasna waxaan rajaynaynaa inaad meesha aad ka sii wadaan intaa kadib waxaan jecelahay in walaalkeen cabdi nagari runtii aan ugu mahadceliyo oo aan ku ammaano guusha weyn ee u soo hooyay boqortooyada waddanka Holland iyo guud ahaan dadka Soomaalida ah dadaalkii runtii muddada dheer uu ku soo jiray oo ku soo dhamaaday kulankii uga qayb galay waddanka Japan kana soo hooyay guul weyn oo dhammaanteen annagoo dhan aan ku wada faraxsanahay cabdi aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay يعني وانا runtii farxad weyn ayay noo tahay waxaadna tusaale u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada kale ee Holandeeska ah in haddii ay dadaalaan guusha guulamida ay gaari karaan muxuu ahay in uu magaalada Nijmegen uu ka tirsanaa dhalinyaradii ka soo baxday uu yahay taasna waxay samaynaysaa macno gaar ah waxaan jecelnahay kulanka soo socda oo jecelnahay inuu ka dhici doono ama tartanka soo socda Faransiiska soo sida ma cabdi Paris waa loo dhowdahay inaan ka wada qayb geli doono insha Allah waan kula joogno marka aad iyo aad u mahadsantahay waxaa sharaf u arkaa runtii in Nijmegen ay macquul nooga dhigtay dhalinyarada Nijmegen in aan maanta kasoo qayb galno xafladan ma sha Allah weliba maxamed amiin aad u mahadsantahay ururkaaga wax qabadka fiican uu sameeyay oo ma sha Allah dhalinyarada Soomaaliyeed uu muujiyay ilaahay ajri xasanaadka ka siiyo jazakallahu khairan hallo ja ik geef gewoon speeches, dus voor de eerste keer, dus dat is sowieso een beetje spannend. Ik heb maar wat snel opgeschreven. In ieder geval zijn we hartstikke trots op jou. Je hebt een geweldige prestatie geleverd, dat staat buiten kijf. Maar daarnaast gaat het verder dan dat. Talent, daar word je mee geboren, dat zit in je DNA. Maar het vervolgens moet je wel wat mee doen. Daar heb je dus doorzettingsvermogen voor nodig. En dat moet je laten zien op de baan. Dat is een Olympisch gedachtegoed, wat we allemaal heel erg koesteren. عليكم والله وكما سنتين هنا كان يسوع سنتين هذا لكن وحاش يعني لما يربط إنه متشيدو نكذا سجى سوتك السوي حرتي ورك سعر أو لما يرديها ما عوش يا عمرك يا هو واحد يقول في عين مثال في عنا حقوق ذكرتين ديت ويلكسي أكثر اليوم وأنك ويلكس أسر مركوترين مسمينه يو كعاوية وحوش علي هاي أسجى دورتي إنه أرضكم وسقاسفين لكن كعاوية marka Soomaaliyeedna waxaan ilaa intiina kaliya qodbo iska jeediyaa bal inta ficilka inta aysan u gaarab ilaa ka dhigo in ilmiina ku caawisiin sportiga waa muhiim ay nooc ha noqdo aniga wuxuu jecel yahay bal inuu dad iskoolka soo laabto muxuu qabanayaa ay 4 kilomitir iskoolka yimid 5 kilomitir iskoolka yimid bis computer ku shidana marka YouTube wada yaqaanaan waalidkina waxa ka fiirsadaan xanta iyo politika iyo dad isheesta ilmiina waxa ka fiirsanayaan Nicki Minaj iyo Bilaayo dhan so ماشي بحاجة وإحنا nothing وخسارة أنت ساعدوا إنه يسوق مركي ماذا from 5 o'clock إلا عشان تلاقي جاري بدنا وقت خسارة هذه فيريو في ملاد الصومالية أنت سكليه وحققت عندي لها أنت سكليه وحققته المها مجرات دبال باسكيل تنس أورت نامي خدت بدنا لها نحن العاوية وحكرنا دولة الله ساكن ويجران فيلو حالة تاير كنا مركز صارنا لما بهنا ويجرا تاير كان قتيل تاير كسر قدرنا نساء أتلتيك بانا جرتا دور في عنله تبريو تيو تشوجو كعم في عن كوسو دوينيا يا استعماله ويجران وحي لما بهنا إن هدي بيقول لوسية أو عيرة تروق ولا everything ويجرتا وحكستا سيد هذا اللي بأرد أد وين أو قف كستا أو نايم يخناري قانو Soomaaliku markii iska qayb galaysa adoo ma faraxaysta abdi bila abdi dad badan soo arkay warda xataa tabaal la garay iyo tennis midaal ma haysid laakiin waxa haysta abdi bila haysta ma faraxaysta wiilkaada da 7 hills waxa jira ordaha yarka loogu talagalay ilmaha yarka 1 kilomitir loogu talagalay afar jir ku jira ku sayf hevel waxa jira sayf kilomitir 2 kilomitir loogu talagalay yarta 15 ana waxaan ku bilaabay anoo jira 18 jir oo xilli la dhigi karo waa daahday ah laakiin kan waxa ka dadaal aad u adag waan sidii ka dhalinyar badan kama soo bixi karaan dadaalka aan ku jiray wada dhalinyar badan markaan isla hadlaynay oo Itoobiya joogto isla tababar jirnay ninka soo xasuustay wala niyo waagii saasay jirtay meel uu ka gaaris wala isku ogaay macna extra dadaalkaas keenay laakiin halkan struggle kaas aad u badan loo baahna because wixii dhamaa uu Korea laamba marka dhalinyartiina ku caawiyo sportiga
أنا مركان أبل دون دقنا شري 2010 2010 dhalinyar badan oo cadaan ah isla orjirnay Soomaalidu is arkeen ba dhalinyar cadaan ka hordhan ayagoo sport adag ku jiro ciyaaraha Yurub ka qayb galinay yar ka under 20 under 20 under 30 ka qayb galayno ayaga dhanka ugu yar haabiyo u dhiganay maxaa keenay orodkii ku baraya discipline ku baraya marka soo cunuga orodkii boqolkiiba orod ku jira Mareykan tababar u tagayno iyo Afrika tagayno adduunka ka qayb galayno ayaa ayaga dhan haabiyo u nifooda dhiganayeen ويسكو لبض ويسكو وأيوه هاي نيفو سبونسر له يا ما هان أيوه يقولك دي توكل مانتو اسك جونيور اسكا أيوه بروفيشنال ولي هابي أو سيدي كرين أنا هابي أنا تجان ربي واسكو قري مرك لبض أسبوع كار سنة لك اسك داف تاني وحيد أنا هاي نيه رجع دقة يقطن وكينيا نيتوبيان رجع سامتو وقال عن جرد على الصاعنو براقهنا أيضا بيان لكن أنا تجان كذا واسكو قري ونجرها إيميلكي أنا ومعنا كسب قرنا أسوي راني هو أنا كعوين إنه وكهيل كرنا إنا ترين كاميرا كنت تقدم ملاه وحنا فسح كرنا السنة كي أفرجنا فسح كرنا وحنا يوم مثلا أنت بقى لكن رجاس أنا ليه كسوار عيار مهن أصدق أسبوع على سطح برضه مو فيلنا وأنا دور السنة لسويتشو حتى نحبوا قاعدتي وحيد لو يكون يتوانكي هذا ما يقع كسور يكتي كوي 8 سنة مية ده صح سكول قريب دميسي كوي 8 سنة مركا وهدف مركا لهذا مركا عنق لكن مركا أورج هذا وحي كبلة هذا ديت كم ور هاي ويلكيز وحو هذا أو قدرس أمري لكن هالمرة جي أسجع الدمية أسجع فهمي وحي تاي ير لا أرضه قرن لا أرضه أرضه مقعد وكل فهمي أسجع مركز دبراي لكن عنق أنا مركا قبلة بس كل سوق عيد قاري هو كيندي تابر كل رعجر ما كل رعا أو جيا سمال السماني مركز مركها لأن يتدين ساعة ثانية هاد لا ضيق أيام إنسبيريشن مسمى هذيك وعلاش أنت هالأك ده ما حاجة فاينيسي nothing عارفات كل أرض مركا وكم ما سنتين هو بحني لها استعماله أنت هذا ودنك إلى الصعدة لأن يرتي صار أرورية أنا إنسبيريشن حاجة قديمة الأرض كبلاوي عداك مركز أردي لكن مركا أركي Soomaali ordi kale kamid yahay wiil oo Cabdi Raxmaan waa rekoorka Mareykanka haysta 5 Olympic ay damarey asayna xasuustaan inaan arkay marka Soomaaliga markaad aragtid tan waa wax sax hada xulay anigu wiilkaas cadaanka waa ku farxsan inspiration ku sameeyay laakiin kan cadaanka indiis oo markuu arkay ayuu si aamin inuu kari karo laakiin markaan Soomaali arkay ayaan si aamin inaan kari karo Kenyaanka Etoobiyaanka oo asleena waxaan maxay soo cunaan la qaba karin aan aamin iska dhici karo ayagana oo markaas ka bacdan u tababarto marka waxaan ilaa dhalinyarta saas marka ardada ka qayb galo kala la socda hadda waxaan maqlay in dhahay buug goor maqlay buug 2 sano socdo waa qof kasta oo taqaano marka dadka wareysiin Soomaaliyeedna kii waxa markuu heer gaaro isticmaal la hadla Amsterdam waxa jiray wiilal daily paper la dhaho oo modelka kale heer sare ka gaaray dad Umar Muuni oo Den Haag jooga marka arkaba laakiin Soomaaliyeed ma isticmaalaan cadaanka saddex kale cadaanka la shaqeysanayaan Soomaaliyeed lama soo doonanaysa laakiin wiilka Soomaaliyeed ugu farxi lahay markuu arko wiil oo asagoo qaxootiba soo galay oo maanta daily paper kamid daily paper inta laga haysta Umar Muuni oo la fiir kala dhaho oo xataa halkan kuma dhalan xataa ayaguna annagoo kale waa generation-kayga waxa waay 92 marka waxaan dhihi please dhalinyarta hadda adinku aad information kari karin kuwa heer ka gaaray isticmaala markaas way soo wici kartiin in dhalinyarta la hadlo sudad caloosha laga soo kala yareeyo oo kuma santiin